subaxa war degdeg oo la yaab lahaa idin wadaa wallaahi. Gabadhii xabsada kala afduubaysa waa la soo helay subaxan. Waxaa laga soo helay ayadoo nin gaal ah la jiifto loojin. Ninka gaalka ahay oo waa Kikuyu, waa saaxiibkeed. Waa labadii isla afduubeen, ayada iyo ninkii gaalka ayaa ka dambeeyay afduubkii gabadhaas. Lacagtii ay bangigeeda ka baxsadeen ayay baar qamri lagu cabo ku gateen. Baarkaas ayayna ka shaqaysanayeen, haweenkiina loojin ayay isla saaxanayeen. Ka warrama bal. Wallaahi gabadhaas inkaaray qabtaa. Soomaali way ceebaysay, familkeedu way ceebaysay, hooyadeed way ceebaysay. Hooyadeed say u ooynaysa ma aragteen, ay malaynaysa gabadheeda inay gabar fiican tahay. Alla gabadheedii iga maqan, gabadheedii jaamacaday akhrisanaysay, gabadheedii way ii shaqaynaysay. Aaway waa naag gaangastare oo nin gaal saaxiib la ahayd. Bal ceebta intaa la egdaya. Subxaanallah. Wallaahi waa aamini la'ahay. Yar xitaa waa aamini la'ahay gabar Soomaali fal noocan inay ku dhaqaaqayso. Wallaahi waxaa la dhahay adduunyo nin joogo maxaa aragti ku laaban. Wakaasahay maanta waxdii dambi baarista ayaa soo heshay. Waxdii dambi baarista ayaa soo heshay maanta. Gacanta booliska ayayna ku jirtaa. Ayada iyo ninkii saaxiibkeedka oo tuuga isla ahaayeen. Tuugada labada tuugaba hadda gacanta lagu hayaa. Bal sharaf darada fiir ee familkeeda u keentay. Nin gaal ayay la jiiftay baar, ayay la jiiftay loojin. Baar qamra lagu cabana, qamriga lagu gado oo lagu cabana way furteen. Lacagtii ay xabsa bangigeeda ka dhaceen ayayna ku furteen. Ka sheekay. Finally waa un la soo qabtay, laakiin haddaanahay Soomaali wayna ceebaysay. Wallaahi taas sharafteena meel ugu dhacday. Sharaftii hooyadeeday meel ugu dhacday. Sharaftii familkeeday meel ugu dhacday. alla maxay hooyadeed inkaar ka qaaday taas. Subxaanallah. Soomaaliya intaas sarbi inaa idin ogeysiiyo.